وانكو سلامي حلو ولا بيع كوتهاي حلو ونكسن فيديو كان أديك أيام كله وداعيا وحنا كله وداعيا نفط هذا ينفتي ده ما إنا كودير جريو حالد والبو أو كله سودريستا سيدا أد وقفل عليسيد بفرحة هذا أما مروجة هذا كحرنت هاي وحنا كله وداعيا شيء كذا عضي قف أي أبيس ويمد وحو كوير أبي مر والبو وحالك كل ما يعني بعطو حالد والبو عند معنا إنا هراء قاضو horumar iyo guul kama gaarayo maxay noloshu ii dhibaysaa odaygu wuxuu ahaa oday aad u caqli badan qofkaas wuxuu noqon karaa gabar qofkaas wuxuu noqon karaa wiil odayga aad buu u caqli badnaa wuxuu ku yiri aabena keen jikada ayuu la aaday saddex digsi ayuu soo qaaday dabka ayuu saaray dabkana meesha ugu kulul ayuu geeyay saddexda digsi biyaa ka buuxa wuxuu kala ku riday ukun midna wuxuu ku riday baradho midna wuxuu ku riday kafeega mirihiisa muddo 20 daqiiqo markay karkaraysay qofkii wuxuu dhahaa aabe 20 daqiiqo halkan fadhinaa waxna imaade sheegin odagii wuu ka soo qaaday digsiyadii saxamuu soo qaaday ukuntii geenibu wuxuu u saaray saxan baradhadina goonibu wuxuu u saaray saxan digsigii kafeega mirihiisa ku jirana meel gooniyu soo u dhigay wuxuu yiri aabe baradhada taabo oo fiiq wuu fiiqay jilic muu dareemay wuxuu yiri aabe ukunta taabo oo fiiq wuu fiiqay gudaha way ka adkaatay wuxuu yiri aabe waxa aad fiirisaa kafeega wuu fiiriyay kafeega biyihii lagu kariyay wuu madawaaday wuxuu ku yiri aabe noloshu waa saas oo kale mar walbaba ay dhibaato kula soo daristo sida aad ugu falcelisid bay naftaada ku xiran tahay wuxuu yiri baradhadu markii hore way adkayd aabe laakiin karkarka biyaha ayaa jilciyay ukuntu gudaha way ka jilcsanayd buu yiri aabe laakiin karkarka biyaha ayaa adkeeyay kafeega wuu adkaa laakiin karkarka biyuhu waxba muusa ka bedelan kafeegiye waxa uu bedelay biyihii oo madow ayuu ka dhigay markuu wuxuu yiri aabe xaalad walba oo kula soo daristaa yeysan noqon mid naftaada bedeshay ha noqoto mid aad adigu bedeshid ujeedada sheekadu wax walba oo ku hortaagan maanta yeysan noqon wax naftaada bedela ee ha noqoto waxa adigu bedeshid waad ka gudbaysaa assalaamu calaykum